Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khudbad ka jeediyay kala fadhigii 76aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay oo lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka September 2021. Turkiga ayaa sheegay inay ka fiirsan doonaan inay iibsadaan nidaam gantaal labaad oo Ruush ah taasoo ka soo horjeeda diidmada xooggan ee Mareykanka. waraysi uu siiyay telefishinka Mareykanka ee CBS News ayuu madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ku sheegay in Turkiga ay tahay inuu kaligiis go'aansado nidaamyada difaaca. isaga oo la hadlaya warbaahinta oo ku sugan New York usbuucii la soo dhaafay, Erdogan wuxuu sharaxay in Turkiga aan la siin ikhtiyaarka ah inay iibsato gantaalada Beirut-ka ee Mareykanku sameeyo, isla markaana Mareykanku uusan soo gaarsiin diyaaradaha F-35 ee qarsoodiga ah inkasta oo la bixiyay 1.4 bilyan oo dollar. hadalka Erdogan ayaa ku soo baxay qayb ka mid ah oo la sii daayay ka hor waraysiga oo dhameystiran oo la baahiyay Axadii. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa booqday Technofest 21 dabaaldega duulista hawada iyo tiknoolajiyada oo ka dhacay gegida diyaaradaha Istanbul Turkey September 2021. Turkigu wuxuu ku soo bandhigi doonaa Technofest dhacdada tiknoolajiyada ugu sareysa dalal kale, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga isagoo khudbad ka jeedinayay Technofest 2021. Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sheegay inuu u arko saynisyahanada guuleysta, injineerada, farsamayaqaanada, cilmi baarayaasha iyo cirbixiyaanada xafladda kuwaas oo qaabeyn doona mustaqbalka Turkiga. waxaan rajaynayaa in dhalinyarada hal abuurka leh ee Technofest ay noqon doonaan naqshadeeyaasha 2053 iyo 2071 Turki, ayuu yiri isagoo muujinaya sida ugu faraxsan yahay inuu mar kale ka soo qayb galo xafladda koowaad ee duulimaadka hawada iyo tiknoolajiyada. Erdogan ayaa sheegay in uu awoodda hodanka ah ee dalka iyo bandhiga ay tahay dadaalka dhalinyarada, maadaama ay baabuurtu aan duuliyaha lahayn ay ciwaano ka dhiganayaan saxaafadda adduunka. Technofest waa inuu noqdaa lambarka koowaad ee ajandaha warbaahinta adduunka. waxaan rajaynayaa laga bilaabo sanadka soo socda inaan Technofest ka dhigo sumad caalami ah. waxaan ku abaabuli doonaa wadamada saaxiibtinimo iyo xulafada laga bilaabo Azerbaijan, ayuu yiri madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan.